shiinaha wuxuu samaystay ookiyaalo lagu garanayo wejiyada dadka dambiilayaasha ah. barnaamijkeena tiknoolajiyada ee click ee toddobaadkan ayaad ku maqlaysaan. axmed xaaji ayaana ka waramaya. booliska shiinaha waxa ay adeegsanayaan ookiyaalayaal casri ah oo aqoonsanaya wejiyada si loo garto dambiilayaasha. muraayadahan waxaa lagu shubay xogta dadka laga shakisan yahay, taasoo askarta u fududaynaysa inay meel dad badan joogaan ay ka dhex eegaan kuwaas ayna ka dhex gartaan. balse waxaa lagu eedaynayaa in dawladda shiinaha ay awood dheeraad ah arrintaasi ay u yeelanayso, taasoo noqonaysa dawladda ugu dabagalka badan dunida. isbuucan shirkadaha iyo bangiyada Maraykanka iyo Britain ee bixiya kaararka lagu adeegto waxay macaamiishooda ka mamnuuceen iibsashada Bitcoin. lacagtan teknoolojiyadda ayaa hoos u sii dhacaysay ilaa $6,000 ka hor inta aysan soo qaban oo aysan gaarin $8,000. waa meeshii ugu hoosaysay ee ay gaarto tan iyo bishii December oo ay ahayd xilligaasi $20,000. jaamacadda koonfurta California waxay waxyaabo kala duwan u samaynaysaa dadkii ka badbaaday Holocaust oo sheekooyinkooda u beddelay khibrad kororsi. iftiinkan waxa uu dadka la waraysanaya ka qabanaya dhinac kasta, iyadoo qalabka codka garashada iyo software-ka barashada ay isu geynayaan kana dhigayaan isdhexgal run ah. miyaysan noqonaynin olombikada qabowga? hagaag, waa sida la filayo in Pyongyang u ekaato. waa xaqiiqo, waana sida ay kooxda Maraykanka u tababaranayeen sannadka badan. si maskaxiyan ah ayay ugu diyaargaroobayaan tartanka dhabta ah. haddii taasi aysan ku filnayn, sameecadahan casriga ah ee la shaqeeya maskaxda waxay siinayaan awood iyo inay ciyaaraha ay u adkaystaan. miiska billadaha waa meesha ugu dambaysa ee lagu ogaanayo awoodda teknoolojiyaddan.